muran dhanka dhulka oo muddo soo jiitamayay oo u dhaxeeyay maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa noqday mid soo cusboonaaday horaantii bishan koowaad iyada oo labada maamul uu dagaal ku dhex maray deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool. muddadaasi wixii ka dambeeyay waxaa jiray abaabulo dagaal oo laga dareemayay labada maamul ee deegaanka isku hor fadhiya iyada oo hadallo kulkululna dhanka warbaahinta la isku weydaarsaday. dareenka dadka Tukaraq iyo kuwa Soomaaliya ku sugan ee ay colaadan ka qabaan ka sokow waxaa jira Soomaali badan oo aad uga welwelsan mahadhada uu reebi karo dagaal mar kale ka qarxa deegaankaasi. magaalada Bielefeld oo ka tirsan wadanka Jarmalka waxaa isugu yimid mas'uuliyiin ka kala socda jaaliyadda Soomaalida Bielefeld iyo mas'uuliyiin ka tirsan guddiga jaaliyadaha Soomaalida Jarmalka kuwaas oo baaq nabadeed u diray maamulada isku hor fadhiya deegaanka Tukaraq. Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan waa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Bielefeld waxaana uu labada maamul ee Somaliland iyo Puntland u sheegay inay joojiyaan dagaalka Tukaraq isaga oo xusay in dagaal maanta dhaca ay la mid tahay masiibo mar kale curatay. baaq nabadeed oon doonayno inaan cod dheer ugu dirno dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah Somaliland iyo Puntland ka soo cusboonaatay colaad sida darteed annagoo ah dad Soomaaliyeed oo community ah deganna dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Bielefeld kana kooban shanta Soomaaliyeed ama inta Soomaaliya ku hadasha halkana wada degan kuna midaysan communitygaas waxaan garanay annagoo mas'uuliyiinta ah inaynu baaq nabadeed cod dheer ugu gudbino mas'uuliyiinta waxgaradka culamaa diinka shacab weynaha labada dhinacba in colaadu waxba aanay tarayn wax lagu waayo nabadgelyo iyo wanaagna aan colaad lagu helayn kii ku dhintana uu yahay kii kale kugu dhimay oo ka dhimay saadaradeed annagoo wada jir ah ka kooban dad Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed ka kooban waxaan cod dheer walaalaheen ugu direynaa in maskaxdu shaqeyso aqligu shaqeeyo wada hadalna ay ku dhameystaan. waa qodobka koowaad. qodobka labaadna waxaan doonayaa inaan u diro dadka dibad jooga ah ama qurba joogta qurba joogtu haddii ay caruurahoodii dalal nabadgelyo ah u joogaan dadka Soomaaliyeed ee wada degan ee dariska ah ee nabadgelyada ganacsiga xididka abtiga wada ah inay colaad dhex dhigin aflagaadooyinka ama social media waxa ka socda horinta colaada ah aakhiri adduun wax ku gaari maayaan ka waantoobaan hadalka uga bannaan waa hal hadal oo ah ka nabadgelyada ama wanaaga wax taraya. sidaa daraadeed annagu hadalkeenu wuxuu ku kooban yahay inaan dirno nabadgelyo wada hadal walaalnimada ku dhameystaan. injineer Cabdullaahi Diiriye Cali oo ah xiriiriyaha guud ee jaaliyadaha Soomaalida Jarmalka ahna shakhsi si qoto dheer u garanaya macaanka dawladnimada isaga oo ka mid ahaa dadkii wax ku soo bartay gudaha Soomaaliya xilligii dawladda isla markaana ah shakhsi cilmiga uu bartay isla dalka gudihiisa kaga soo shaqeeyay ayaa ku tilmaamay ayaan darro weyn in maanta uu maqlo dagaalka Tukaraq ka soo cusboonaaday. anigu hadalkaygu kooban yahay waxaan rabaa inaan uga hadlo laba qodob oo ah tan koowaad baaq nabadeed oo aan gaarsiinayo walaalaha dhibtu kala gaartay ee deegaanka isaga soo horjeeda kuwaas oo isugu jira mas'uuliyiinta haddii ahaan lahaayeen ciidamada haddii ahaan lahaayeen dhalinyarada waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo cod dheer iyo cod gaaban waxaan ku leenahay dagaalka la joojiyo. qodobka labaad oo ah dadka qurba joogta jecel inay shilinkooda ku taageeraan dagaalka waxaan leeyahay war shilinka aad dagaalka ku taageereysaan ku bedela shilin taakulayn ah oo aad dadkiina ugu naxaysaan. wadanku wuxuu soo maray abaaro wuxuu soo maray gaajo wuxuu soo maray dhibaato dadka wax u qabashadiisa laga fikirin in maanta colaad la geliyo oo dadku ay kala qaxaan oo dumarka iyo caruurta iyo dhalinyarada la qaxiyo. waxaa lagu jiraa 2018 xilli dagaal ma aha. garaadada mas'uuliyiinta ciidamada waxaan leeyahay qof walba oo deegaankii ka soo jeeda nabadda ha u istaago haddii aan lahayn labada maamul iyo dadka deegaankaba. annaguna waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku leenahay annagoo mas'uuliyiintii
jarmalka ah baaqaas nabadeed hana laga gaarsiiyo walaalaha dhibtu ay kala gaartay. ugaas cabdiweli ugaas ukun oo ah guddoomiyaha jaaliyadaha Soomaalida Jarmalka oo ku hadlayay afka isimada iyo kan jaaliyadaha ayaa sheegay in ay maanta tahay xilligii laga shaqayn lahaa horumarka iyo sidii dunida loola janqaadi lahaa, isaga oo baaq nabadeed sidoo kale u diray qurba joogta Soomaalida in aanay ka qayb qaadan hurinta colaadda Tukaraq. anigoo ah ugaas cabdiweli ugaas ukun sida horeyba loo sheegay walaalayaal halkan baaq baanu caawa u soo fariisanay inaanu ka cadayno baaqaasi waxa weeye Somaliland iyo Puntland colaadda ka soo cusboonaatay meesha la yiraahdo Tukaraq baana dhibtay inaanu ama aanu ka seexan weynay in maanta ay labadaas dawladood diyaar u yihiin inay dhiig badan daadiyaan kadib markaanu xogo badan helay markaanu miidiyaha aragnay ayaanu anagoo ah mas'uuliyiintii jaaliyadda Soomaaliyeed ee Germany ama Bielefeld waxaanu go'aansanay inaanu baaqaan dirno waxaanu leenahay walaalayaal oo aqligu ha shaqeeyo ha la joojiyo dagaalka ha loo turo maatada haweenka caruurta waayeelka ha loo turo dadku waa isku dhacaa laakiin waxaanu leenahay nabad ha ka dambayso isku dhaca nabad ha ka dambayso waxaanu leenahay walaalayaalow hadda xilligan hadda xaadirka waxaanu intaas oo saacadood u fadhinaayay waxa weeye in aanu dirno baaqaas in meeshaasi aanu codsanayno in ay Somaliland iyo Puntland ay meeshaas nabad ka gaaraan aynan dagaalna ka ridin waxaa nasiib darro ah 2018 ayadoo la marayo in maanta weli loo ooman yahay in dhiig Soomaaliyeed la daadsho arrintaas waanu ka digaynaa waanan codsanaynaa in arrintaas nala ka aqbalo intaasi taas weeye inta labaad waxaanu ayadana la hadlaynaa dadka qurba joogta sidii horeyba mas'uuliyiintii hore ula hadleen waxaanu leenahay war waanu iska warqabnaa dagaalada Soomaaliya meesha doontaba ha ka socoto waxa dadka wadaa waa dad ayagu ilmahoodii inaga wadna waynu sognahay inaga oo ilmaheeni iyo nafteeni iyo xaasaskeeni banaanada keensanay iyo meel aan colaadi ka jirin iyo wadamo hormaray baynu waxaynu awoodnay inaanu inagu dab ku shidno oo aanu dadkii kicino dhibaatana ka aloon meel kasto ay joogaan qolyahayna qurba joogta waxaan u soo jeedinaynaa walaalayaal oo aqoonta aynu kororsanay dhaqaalaha aynu kororsanay aynu ku bedelo sida aynu hadda ugu shaqaynayno inaynu ku kicino ummadda Soomaaliyeed inaynu horumar iyo nabad aynu kaga shaqayno aan ku bedelano soo jeedinaynaa xogo badan baan haynaa dagaalada Soomaaliya banaanka laga wadaa gudaha lagama wado waxaana ceeb ah oo dhibaato ah intaan anigu ilmahaygii iyo xaaskaygii kala soo qaxay Soomaaliya oo la imid Yurub ama wadamada nabadda ah inaan abaabulo in wiilkayga la mid ah aan iraahdo dagaalka gal ama aan ku dilo oo iraahdo waa inaad wiilka la dishaa ama caruurtayda la mid ah ama aabahay la mid ama hooyada la mid aan qarxiyaa ama raalli aan ka noqdo ayaan la isqaxinin baan leenahay waxaanu leenahay dadka yaan la qaxin hadalkiinana wanaajiya dhaqaalahana hal la gasho horumarka yaan qoryo lagu gadin taana intaasaan ku gabagabaynaynaa gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida Bielefeld Xaaji Maxamed Xaaji Xuseen Macalin Garweyne ayaa isna sheegay in marka koowaad Ilaahay loo laabto lana joojiyo dagaalka isaga oo xusay in faa'iidada dagaalku ay tahay wiil dhinta oo kaliya waxaan ka xunnahay dhibaatadaas oo nagu soo dhadhaceyso baaq nabadeeda jeediheena u jeediheeno labada garab oo walaalaha ah ee isku dhaceen isdilayaan ciidamada is hor fadhiyaan waxaan ka codsaheenaa aan u sheegaynaa walaalahanya inay ka waantoobaan dhibaatada cusub oo maanta leesku hortaagan yahay dagaal wiila ku dhinto wiil kuma dhasho marka waxaan leenahay wax kastaba nabad ayaa ka weyn nabad ayaa
nabada wax naas la nuuga leh Soomaali ayaa ku maamaahday waxaan leenahay nabada ha loo hogaasamo baaqaas waa jeedaheena waxaan u jeedaheena walaalahaanya iska hor yimideen shaydaan ayaa wax abuuro dib wuxuu ka yimaadaa dagaal nin wuxuu ku dhintaa dagaal rag kuma dhasho waa lagu dhintaa xogayaha maaliyadda jaaliyadda Soomaalida Bielefeld Maxamuud Abshir Xirsi ayaa si gaar ah ismada iyo cuqaasha uga dalbaday in ay ka shaqeeyaan sidii loo damin lahaa dagaalkaasi loona kala dhexgeli lahaa labada maamul waxaan leenahay war hal la qaato nabadda baan leenahay dad walaalaabaynahay dad waxaan nahay xidid ECD iyo wax walba soo dad wada dhashay weey dadku yaan colaad la kala dhaxdhigin hal la qaato nabadda baan leenahay waxaan leenahay dadkii wax garadka ismada iyo cuqaashu waa inay dhex tagaan meesha oo ay gogol nabad dhigaan xaaladdan sideedii hore lagu celiyo Caaqil Daahir Caaqil Muuse ayaa sheegay in maanta oo la joogo 2018 ay tahay wax laga xishoodo in dagaal dib loogu laabto halkan waxaanu ka direynaa baaqa waxaanu u direynaa labada dawladood ee ah Puntland iyo Somaliland oo deegaanka Tukaraq xaalad dagaal isku hor fadhiya waxaan leeyahay dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta marka waxaan leeyahay colaadda hal la joojiyo arrinka wada hadal lagu dhameeyo ummadda labada deegaan kala deegaana waxaan leeyahay walaalaha tihiin ummad Soomaaliyeed baa tihiin marka xuduudaha iyo laga yimaado dawladaha la kala yahay dad wada dhashay oo isdhalay oo xidida ayaynu nahay nabadda ha lagu dadaalo odayaasha dhaqanku nabadda ha ka shaqeeyaan qurba joogtana waxaan leeyahay waar waxa aad buubuunaysaan ummadda ka daaya waddamadaynu joogno horumarkooda waad garanaysaan iyo say u dhaqmaan dhaqankaa wanaagsan ummadda in la joogno aynu ka qaadano waxaan leeyahay dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta labada dawladna waxaan ugu baaqaynaa in ay nabadda wax walba ku dhameeyaan baaqyada nabadeed ee ku wajahan maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa ah kuwa isa soo taraya oo dadka Soomaaliyeed ay ku dalbanayaan in maanta laga hortago dhiig daata. Xasan Cabdullaahi Shire, Bielefeld.